sheekadeen waxay ku bilaabanaysaa gabadhan caroosadda ay sariirta kor fadhisa in badan kuma faraxsana guurkeeda laakiin ridda waxaa ka soo galay wiil aad u jeclaa kaasoo ah midka soo guursaday ayada reerkeeda ayuu ka doontay wayna ku soo dareen laakiin ayada ciil iyo cara ayaa ka muuqato guurkan gebi ahaanba kuma faraxsano asaga ridda ayuu soo xiray sidii isagoo guurkiisa lagu faraxsan yahay oo kale dhanka ay sariirtana wuu soo aaday ayadan dhaqul ayay ku fiirisay markii gacanteeda oo qabsadayna xoog ayay iskaga fujisay asaga naxdin iyo filin ayay ku noqotay waxa meesha ka dhacayo idhageysi wiiliyo waad ogtahay aniga kuma dooran guurkana diyaar uma ahayn reerkayga oo kaliya ayaa igu soo qasbay martaba agteeda ma imaan kartid korkaygana ma taaban kartid wadaman barkintiisa iyo go'ayr asaga oo lahaa ay wejiga ugu dhufatay soco iga seexa bannaanka ka dhaqaaji wejigayga bax ayaan ku dhahay asagoo murugsan weliba ilinta ay ka daadanayso ayuu meesha ka soo istaagay war maxaa u taagantoo iga fiirinaysaa soco soo kuma dhihin ka tag meesha si kasta ay haataba asaga waa u murugsanaa sababtoo gabadhan jacayl darteeda ayuu u guursaday rarkadana ugu doontay laakiin ayada guurka marnaba kuma faraxsaneen xitaa wixii ciil ka qabtay sharaxaadda meesha ku dheggan wayna fujinaysay sababtoo markii horeba wiil kale ayay jecleed ayada way xanaaqsan tahay gurigan loo soo guriyo ayaa ciil ka hayaa asagana murugo iyo oohin ayuu bannaanka la fariistay hurdadii way ka guurtay jiif waxa lahamaba jiraba subax waaga markuu baryay kadibna rooti yar iyo kun ayuu iska samaystay si uu u quracdo shaqadiisana u aado in yar kadibba saacadda ayuu fiiriyey wuxuu arkay waqtiga inuu ku dhammaaday isla markii wuu soo istaagay si halhaleel ahna xaaskiisa ayuu markale ku kor dhacay war naga siko kas ay igu soo kordhacsa soo maahana inaan kula hadla yartaa waa ku fahmi karaa aniga iga raalli noqo ugu dambeenna meeshuu ka dhaqaajiyay asaga miskii quraacda ayay firiisatay ayada horteedana waxay ku aragtay warqad yar taasoo ay ka soo qaaday way kala furtay waxaan ku qornaa waan aqaanaa kulley ma taqaanid rooti kun sida loo samaysto laakiin anaa kuu diyaariyey iska cun saake kuna qoraaco hase ahaatee guriga ayay ku cajistay waxay samaysa ma taqaano ugu dambeyn waxay ku fikirtay jaceylkeedii hore in ay wacdo maadaama ilaa hadda ay jeceshahay guurkan raalli aysan ka ahayn markii ay wacdayna taleefankiisa mashquul ayuu ahaa ciil ayaa ka qabtay iyada arrinkaasi kamaysan daaline mar kale ayay ku celisay sidoo kale mashquul ayuu ahaa maxaa samaysaa mar saddexaad ayay ku celisay haddana ugu dambeyn wuu u dhacay halo intee joogtaa afiga ii sheeg bal adiga kale waaba lagu guursaday maxaa iga soo maxasi kartaa waad ogtahay aniga guurkan ay qaraale kama ahayn ilaa haddan adiga oo keliya ayaan ku jeclahay meesha joogto oo keliya ii sheeg waan ku imaanayaa yaqay waayahay waan ku imaanayaa ugu dambeyn way la kulantay laakiin asaga wuxuu dhahayay adiga xaas ayaad noqotay waana lagu guursaday anna maxay gartaa ay mashquulinaysaa wadar soo taa guurkaas aniga raalli kama ahayn yaqay ilaa haddan adiga oo keliya ayaan ku jeclahay jacayl ayaad leedahay aniga maxaad ii qaban kartaa ii sheeg wax kasta dartaa u samayn karaa ilaa hadda ninkaas lama seexanin wax kasta darta ayaan u samaynaya la soco haddaba adiga ayaan kugu dhaaranayaa ii dhiib gacantaada beenkuuma sheegaya ninkaas nolosha ayaan ku cariirinayaa ilaa asagoo iiga soo furo labadeen nolosha waan qaybsan doonaa inuu shumay ayuu isku dayay laakiin ayada gacanta ayay ku celisay waxay dhahday may hadda maan maxaa ka wadaa ii sheeg naga daayaaqay gacanta ayay ka qabatay balse waxay u sheegtay wax kasta inay raalli ka tahay balse meeshaan waddo ay tahay gurigana ay u raaxi doontaa asaga inuu isdajiyo oo keliya loo baahan yahay asaga halkaas aad ayuu ugu farxay isla markiiba inakeen aan baxnay ayaa ka soo foqday
hay maxaa kugu dhacayna may wax dhibaato ma jiro habeenkii xigana gurigeeda ay u soo hooyatay sariirteeda ay ku kor hurdaysay inkastoo ninkeeda uu ka maqnaa laakiin ugu dambeyn asagana wuu u yimaaday isla markii wuxuu arkay qoftaan sariirta hurdaysa weliba gacanteeda ka soo laalaado asaga wuxuu ku fikiray gacanteeda kor inuu u qaado weliba laabta uu u saaro si aysan si xun ugu hurdin balse ayadoo hurdaysay gacantiisana way ku sii degtay maba aysan deynin ilaa ay ka barkato asagana wuxuu ku khasbanaaday hoosteeda inuu fariisto weliba uu sugo ilaa gacantiisa ay ka daynayso balse wuxuu ku fikiray haddana in cabaar inuu iska fiirsado quruxdeeda timaheedana uu toosiyo balse ayada way ku soo kacday isla markiina waxay aragtay ninkan korkeeda fadhiya qayli iyo buuq ayay ku bilowday wariya aniga hoosteeda ammaan soo kuma dhigina hadda ayaan ku fahmay hurda ogaayay soomahana inta hurda ay iga faa'iideysan rabtay maya wax ma sameeynin yaaqay in cabaara qayli ayay waday weliba wax alaal wax afkeeda soo qabto ayaa isaga dhiis banaankan way u bixisay ugu dambeeyay iga bax guriga haddii aad ka soo tahay sheekooyinka sax lafna fadlan follow soo dheh la soco qaybta xigta mahadsanid